sheekhnimo ku soo caanbaxay ugu dambeynna wuxuu noqday qof ay lacnada Ilaahay ku dhacday waa kuwan culimadii Soomaaliland ee qumana kan wuxuu ahaa mid ku qaraabanaya diinta Islaamka cunugan waagi hore waxa lagu bartay inuu wacdiye iska soo duubo culimada isu akaysiyo Sheekh Mustafa iyo codkooda inuu isku soo duubo ayaa lagu bartay markuu half milyan gaaray ee uu siiri dad kugu filan waa haysataa wuxuu bilaabay inuu qabiilada Soomaaliyeed kala geeyo inuu qabiilada caayo inuu koomba dhigto oo dadka TikTok ka caaytama oo la soo fariisto oo la caaytamo qabiilada uu ku caayo heesaha iyo quraankana uu isku si isaga soo duubo waxa soo dhan kuma haysano waa shaqadiisa asaga iyo Ilaahiisa ayay u taalaa ugu dambeyn calankii Yuhuudda ayuu soo qaatay oo ku faanaya dawladda Israa'iil oo Soomaaliland u aqoonsatay dal madax Israa'iil ayuu dawlad ku sheegaya Yuhuudda oo la og yahay inaysan dhul iyo dawlad midna lahayn ee ay rabaan dhulka Islaamka inay dawladda ka sameystaan ayuu aqoonsan yahay calankoodii kor u qaadaya oo calankii Yuhuudda ayuu ku faanaya wuxuu soo istaagay inuu yiraahdo dawladda Israa'iil oo Yuhuudi taageero calankii Yuhuudda uu soo qaato asagoo nin culimo sheeganaya markii horena culimo iyo wacdi ku soo caanbaxay inuu calanka Yuhuudda kor u qaadidiisa iyo muujintiisa fiyuus iyo lacag ku raadsado oo irsaaqad ka dayo calankii Yuhuudda sheekhnimo ku soo caanbaxay ugu dambeynna wuxuu noqday qof ay lacnada Ilaahay ku dhacday waa kuwan culimadii Soomaaliland ee qumana kan wuxuu ahaa mid ku qaraabanaya diinta Islaamka waa kuwan dhalinyaradii Soomaaliland ee u garaadkoodu celinayay ee wax bartay diinta Islaamkana wax ka yaqaanay Oh my God.